بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام يا أمة الصوماليات ميل كستا وشنت قارة دون كاتك سجنتين يا مقام كستا الليدهين وعنك سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأضي صوماليات ومسلنا وحان أمة الصوماليات ساك وضع فرين قالية oo fariinta ugu qaalisan oo qof bini aadan saaka uu ku fari karo wixii ka soo hara kitaabka alle fariintaas qof kasta oo Soomaaliya niqaam kasta uu leeyahay way ku socotaa waana fariin aad qaali u ah kuna tusayso qof walba oo Soomaaliya inuu damiirkiisa muujiyo intaanan u gadagelin fariinta waxaan ka codsanayaa adigaasi daawanayo oo Soomaaliyeed oo muwaadinka Soomaaliyeed inaad faafisid fariintan oo ku faafisid baraha bulshada gruubyada WhatsApp-ka Facebook-ka YouTube-ka Messenger-ka baraha bulshada dhamaantood inaad ku faafisid waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed sida la socotaan maanta waa 15 Maarso oo ay noo bilaabanaysay dacwadda badeena annaga iyo baajuunta dacwaddaas oo ay nagu matalahayeen halyeeyada Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed maxkamadan uu u fadhiyo halyeeyga Soomaaliyeed ee Cabdulqawi xakabkana uu qabsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo uu diiday inuu maxkamadda ACJ kula hadlo maahan inuu meel kale ay ku wada hadlaan madaxweynuhu diiday kuna go'aan qaatay waxa dhagaheena soo gaarayay 24 saac ugu dambeysay dhagaheena waxa soo gaarayay war farxad leh oo ummadda Soomaaliyeed aad u farxad gelinaya Somaliland oo ku dagaalamaysay muddo 30 sano ka badan inay gooni isu taagtay waad maqlaysaan dhawaaqa ka soo yeerahaya inay Soomaali mid tahay inay badda Soomaaliya mid tahay in haddii midaan koonfureed la qaato midda waqooyina la qaadanayo fariinta Somaliland bay ka timid waa muwaadiniin Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed maanta 15 Maarso waxa la sugayay oo dhagtu inoogu taagneyd inay ka bilaabato dacwadda ACJ anaga iyo baajuunta dacwaddii oo bilaaban dhawaaq annagana dhagaheena u roon iyo calaacalka baajuunta 24 saac ugu dambeysay la soo gaarayay waxaan ka codsanaynaa qof walba oo Soomaali ah inuu inta u dhaxaysa 15 Maarso oo maanta ah inta u dhaxaysa 9 saac saacadda qaaradda Afrika ilaa 10 saac inta u dhaxaysa inay dhagtu u taagnaato inuu la socdo dhawaaqa ka soo bixi doona maxkamadda qof walba oo Soomaaliya taasaan ka codsanaynaa waxaan kaloo ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed marka ay maxkamaddu go'aankeeda soo saarto ummadda Soomaaliyeed inay banaan baxdo damaashaado farxadeeda muujiso dareenkeeda kiciso ay sida maalin iida u banaan baxdo meel kasta ay joogto banaan bax iyo farxad iyo damaashaad ummadda Soomaaliyeed inay muujiso sida maalin iideed in baajuunta iyo wixii la halmaalana ay tusto
inay isku duuban tahay ummadda Soomaaliyeed, dowladda iyo dadweynaha inay isku duuban yihiin, hantidoodana aan dhayal lagu qaadan karin, yihiin dad geesiyaala, inaan hantidooda dhayal lagu qaadan karin, ay iskuna duuban yihiin baajuunta iyo wixii la halmaada iyo shisheeyaha, inay tusaan ummadda Soomaaliyeed damiirkeeda muujiso, dadnimadeeda muujiso, midnimadeeda muujiso. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka codsanayaa fiidiyowgaas inaad faafisaan oo baraha bulshada ku sheer garaysaan, ummadda Soomaaliyeedna ay midnimadeeda iyo damiirkeeda muujiso. go'aanka maxkamadda kadib ay ummadda Soomaaliyeed ay sida maalin iideeda kale u dabaaldegto. taasaan ka codsanayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba jecel. waa dardaaran oday Soomaaliyeed oo muwaadina. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa fiidiyowgan inaad faafisaan, fariintaas ku socoto ummadda Soomaaliyeed. aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.